gabadhan waxaa lagu magacaabaa Lina. Hadda waxay ku jirtaa xabsiga. Gabadhan waxay kasoo jeedaa wadanka Indonesia. Waa gabar social media gaar ahaan TikTok-ga caanka ah. taasi oo haysato 2.1 milyan oo followers ah. Maalmaha ka mid ah waxay dalxiis u aaday magaalo magacaabo Bali. Ayada oo dalxiiska intay ku jirtay oo dhan soo duubaysay waxyaabihii ay ku aragtay meesha ayagoo shopping gareysanayso ayadoo parachute ma taqaana badda korkeeda biyaha lagu dalxiiso oo ku baashaaleyso ayadoo maqaayada joogto oo wax cunayso inta way soo gelisay. laakiin problemka ugu weyn kaas ma ahayn. Waxay tagtay maqaayad dalkeeda waxa ku jiray doofaar. Lina ma ahayn qof hore u cunay doofaarka. Kadib dadka oo asxaabteeda ayaa waxay u soo qoreen ama u soo qorayeen dhadhamiska aad u macaan badan yahay ku soco si loo dhahay ugu dambeyntii reaction-keeda ama wajigeeda sida ay ka siinaysay ayaa dad fara badan soo jiitay isla markaasina muuqaaladii ee ay cunaysay doofaarka ayaa qarxay oo meel walba gaaray. ugu dambeyntiina waxay gaartay muuqaaladii wadankii markaas ay ka soo jeeday dhammaan dadka ayaa daawadeen. sababtu waxay tahay maadaama Indonesia ay tahay ama majority-ga inta ugu fara badan dadka ay yihiin muslimiin waxa arkay community-ga culimada oo mataqaan Indonesia ay arkeen kadibna muuqaalka ay daawadeen ugu dambeyntiina booliska ayaa lagu dacweeyay. sababtu maxay tahay loogu dacweynayo gabadhan doofaar way cuni kartaa xaq u leedahay qof mataqaan weyn waaye dambigiisa loo xisaabinaya. dhibka ugu weyn wuxuu ahaa markii ay mataqaan ay tagtay maqaayada isla markaasina doofaarka loo keenay ayay markii bilaabaysay waxay tiri kadibna way cuntay. waxa lagu haystaa oo kaliya gabadhaas wax kale ma ahan magaca Ilaahay ayay waxay ku bilowday iyadoo cunayso doofaar. sidaas darteeda ayaa waxa u muteysatay maxkamad in la soo istaajiyo isla markaasina waxa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah. hadda Lina waxay xabsiga dhexe ama xabsiga ku yaalo wadanka Indonesia liinta ku cabay ayada oo diinta u gaftay oo dhahda oo kaliya bismillah. meeqa qofood oo Soomaali ah ayaa maalin walba diinta u gafto ama nabiga aflagaadi sallallahu alayhi wasallam ama meeqa gabdhood ay soo qaawiso wadankeenana 100% muslimiin waaye kaniisada ma nagu yaalaan culimo oo diin waa leenahay qof go'aan ka soo saarayna ma jirto boolis soo qabanayo oo xirayna ma jirto ama sharci ama shuruuc oo diinta ilaalinayo ama diinta loo gafo shuruuc oo mataqaan ilaalinaysana ma ka jirto. marka waxaan filayaa insha Allah inuu wadankeena noqon doono sidii Indonesia oo kaleeto qofkii diinta u gafo kaleeto in la soo qabto isla markaasina abaalkiisa la mariyo ugu yaraan macnaha 10 sano soo noqo haduu dil mutaystana dilkiisa la siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.